cashirkan hadda waxaan gelaynaa qaybta oo so hadda marka haddii aad fiirisid meeshan aan macnaha kasoo baxnay waa budgetkii wixii aan sameynaynay haddii aad rabtid macnaha in waqti oo specific adig ku in xaysiintaas ay ku dhamaato haddaad rabtid waxaa ku dhufanaysaa meeshan kadibna waqti hebel ha ii dhamaato aad dhigi kartaa macnaha dhib male haddii aad isleedaha waayo macnaha kula sii soconin xaysiintu so marka meesha hadda aan marayno waxa waaye audience so haddii xasuustiin audience hore aan soo sameynay oo macnaha waxaan ka wadaa custom audience iyo waxbaan soo create garaysanay haddii macalla hadda meeshan aan search ku dhufto custom audience meeshay ku qoran tahay waxaa noo soo baxayso custom audience-ka aan soo sameysanay waa kuwana haddii aad xasuustid 30 days iyo last 14 days iyo 7 days si iskugu xigeen marka 130 days 180 days oo ahay leadskahay marka hadda meesha waxaa kusii qoran no active because maana ma ahan active ma ahan marka audience-ka hadda aan joogno macnaha hadda ma u baahnin maadaama aan nahay xaysiinta ugu horreysa aan kaliya garanayno marka I hope inaad xasuusitid waxaan ku sheegay waxayd in aan early aan create garaysano aan dhisno custom audience si haddii xaysiin aan sameyno ay macnaha jeebka noogu soo galaan dadka wax naga gatay iyo dadkaan wax naga gadan macnaha marka hadda waxaan joognaa meeshaan joogno waxa waaye marka location so marka hadda waxaan sharaxaynaa locationka wax yar oo adeeg brief aan si fiican u sharaxno meeshaan hadda aan joognana waa weli waxaan ku jirnaa next levelkii oo ahay adsets meesha adsetska laga create gareeyana waxa waaye wixii locationka iyo saan kugu soo sheegaba so hadda marka locationkan haddii aan dhaho kale edit waxaan dhahaa oo kale for example waxaan mar rabo meeshaan marka waa iska canceli karaa United Kingdom meesha ku qoran tahay waa canceli karaa meeshaasaan taabanaa waa soconaya marka kaba soo qaad waxaan rabaa inaan xaysiinta aan ka dhigto meeshaan searchka ay ku qoran tahay oo kale aan ka dhigay waxaan leeyahay oo kale waxaan rabaa inaan dhahdo Soomaaliya oo kale so Soomaaliya markaa fiirisid meeshaan waxaa ku qoran country iyo region so mar walba marka haddii aad rabtid country oo kale meesha aad joogtid fiiri because hadda by meeshaan ku qoran by Soomaaliya macnaha waa country eedana macnaha country ahaan u fiirinayaa laakiin haddii aan dhaho kale hadda kaba soo qaad by this haddaan dhaho ama by this haddaan dhaho kale wax badan aad iska soo baxaayo marka waxaan rabaa inaad macnaha fahamsan tahay meesha aad joogtid iyo meesha aad target garaynaysid sometimes waxaa dhacda xogo mistake oo qofka oo meesha uu joogo maana meel kale iskaga dhufanaya Soomaalidaas oo kale u arkay waa Nigeria ma Soomaaliya ku taala bismillah wa naxale St. Alexander South Africa marka meesha marka ku dhufatid Hargeysa waqooyi galbeed Soomaaliya city aragta macnaha saas inuu kugu soo saaro hadda Soomaaliya darabtid oo kale Soomaaliya ku dhufsato kale for example Soomaaliya rabaa tiri hadda Soomaaliya dalbato meesha locationka mar walba ogaaw Facebook wuxuu ku leeyahay dadka meeshan recently tagay ama ku degan macnaha so marka haddii meeshan aan ku dhufto flairtan hoose aan drop down kan haddaan ku dhufto dadka macnaha Soomaaliya hadda maadaama aan dalbaday waxaan leeyahay Facebook dad meeshaas hadda kor maxay recently tagay xataa xaysiinta tus they don't have to be Somali inay joogaan qasama so marka adiga mar walba oo xaysiintaas sameynaysid aniga weligii meeshan kuma dhufan xaysiintan sameynayo mid oo maalintii $100 laga qaadanayo haato mid $200 daily budget haato mid $5 daily budget haato weligeed meeshaan aan ku dhuftaa wadanka aan target gareynayo ama meesha aan target gareynayo ilaa ma ahaato postcode ama zip code ama ay ahaato city ama ay ahaato xaafad ama country ahaato waxaan dhahaa Facebook dadka meeshaan degan this location degan arbaa muhiimta meesha ku dhufanay marka people live in this location ku dhufsanaysaa so marka hadda meeshii ku tusay haddii marka aad locationka aad rabtid in specific area oo ku gaar ah adiga aad rabtid oo kale kaba soo qaad macnaha meesha rabtid ku xirantahay hadda kaba soo qaad meeshaan oo kale maadaama Soomaaliya dhan oo kale waxaan dhehnayaa oo kale burcan ka dhiganaynaa for example gobolka ragga aan dhahno Facebook meel kale marabno gobolka ragga
ayaan rabnaa tog dheer oo ku dhuftay dhag. so marka maadaama meeshaan hadda burco ugu soo dhuftay aniga, haddii aan rabo inaan burco iyo agagaarkeeda oo kale aan rabo kale, waxaan leeyahay meeshaan aan ku dhufsanaa, meeshaan drop pin ay ku qoranta kale aan ku dhufanaa. binkaasna macnaha waxaan ku dhex tuuraa meeshaan burco aan ku dhex tuuray. markaan burco ku dhex tuuro, markaasna waxaan leeyahay okay, waxaan u baahanahay agagaarka burco ilaa adiga 16 kilomitir oo dhaa mogtahay oo isiiyey. so 16 kilomitir mar raba waxaan leeyahay ilaa 40 kilomitir oo burco iyo agagaarkeeda aan rabaa in macnaha aan wax ku xayeysiiyo. so 40 kilomitir ilaa burco dhexdeeda oo kale for example. so marka saas u samayn kartaa drop down ka saas u samayn kartaa haddii macnaha aad rabtid waay meel specific ku adiga. haddii aad rabtid oo burco xaafad kamida aad rabtid bis inay ku ahaato xaafad magaceeda marka ku qoratid, xaafadaas wax ka baxsan aan rabin oo kale kaba soo qaad. waxaa dhahda oo kale xaafadaas waxa adiga 4 kilometer square bes aan rabaa, kabacdina enter aan ku dhufto. so markaas wuxuu iisoo saaraa meeshaas burco dhexdeeda ah. zoom burco xaafada kala barka meel oon macnaha ka bixaynin waa macnaha. so marka meesha marka ku dhufatid meeshaan oo audience ay kugu qoran tahayna waxaa ka arkaysaa inta macnaha dadka aad gaaraysid oo potential reach kala dhaho inay macnaha ka yar yihiin aragnaa hadda 1000 inay ka yar yihiin aragnaa. so haddii laakiin aan tallaabto aan dhaho okay 4 kilometers macquul maahane, waxay iga dhigtaa 100 kilometer for example. so hadda 100 kilometer square igaaga dhigaan ku dhahay. potential reach macnaha 30 iyo waxa waaye iyo 3000 haddadan la joogo dadka meeshan macnaha degan iyo oo Facebook na haysto oo Facebook uu ku warhayo oo Facebook isticmaalaan waaye dadkaas macnaha. haddii laakiin aan dhaho dadka meeshan recently tagay oo kale for example in this location iyo dadka degan iyo macnaha aan ka dhigo way badanay macnaha potential reach macnaha ilaa 42 u gaaray hadda. so macnaha markii adiga aad locationka aad wax ku aad rabtid inaad macnaha target garaysid, waa inaad macnaha la socotaa dad oo enough meesha ma degan yihiin, ma dad fara badana audience-ka macnaha meesha koowaad oo ka fiiri kartid. waa haddii haddaan dhahno kale Soomaaliya oo the bucket waxa dhan Soomaaliya ka dhigno kale, Facebook wuxuu leeyahay marka ilaa 2 milyan iyo 100,000 oo qafood macnaha Facebook active users camal oo macnaha oo sidaad macnaha Facebook uu sheegaya waay. I believe inay ka badan yihiin laakiin so marka hadda waa aragtaa daan laakiin ka dhigno dadka macnaha Soomaaliya recently iyo macnaha ama tageen ama degan ba labadaba aan wax dhan aan ka wada dhigno isku meeshii le waa weli wax weyn oo soo different oo kusoo dara ma jiraan. so marka xaafad ayaa u dooran kartaa adiga, xaafadda aad rabtid ayaa dooran kartaa. locationku marka saas uu shaqeeyaa. haddii aad macnaha rabtid inaad xaafad adiga ku gaar ah sidoo kale hadda anoo kale meeshaan jooga dalka dhoo kale London aan ku dhufto kale oo macnaha City United Kingdom hadda meeshaan London waa Canada ku taala. London United Kingdom markaan ku dhufto kale City aan dhaho kadibna aan dhaho dadka London degan bis ayaan rabaa ilaa 9,200,000 people aad degan London kaliya. so marka intaasoo milyan oo qof ayaa waxay joogtaa London. so haddii marka adiga aan isleeyahay dadkan faraha badanna ma rabo oo waxaan rabaa specific meel ah oo macnaha one area ayaan rabaa haddaan dhaho kale oo macnaha aanan rabin London oo dhan iyo waxaas inaan wax tuso, waxaan leeyahay kale meesha aan markaas rabo oo locationka aan rabo kale kaba soo qaad. waxaan rabaa one location oo macnaha hadda postcode oo kale aan geliyay UB34DX oo kale aan geliyay waa postcode. so marka postcode-kan oo kale aan iska geliyay waa place, laakiin placekaas ayaa waxay tahay meel aniga ii dhow ama meel aan deganahay ama meel businesskayga ku yaalo kale. so marka maadaama businesskayga meeshaan uu ku yaalo, waxaan rabaa bis adiga meeshaan in aan tuso dadka xaafadda aan joogo ama businesskayga uu ku yaalo kaba soo qaad. waxaan ahay construction balaayo guryahan jijibiya waana dhisaa. marka customerka wax iga gadanayo ma raba in iga soo wacaan meel oo 20 kilometer ii jirto ama 10 kilometer ama wax adiga 5 kilometer ka badan ma rabo. so marka waa pinkan soo qaatay xaafadda aan ku dhufsaday kadib waxaan dhahay okay meeshaan yaa iskii hore igu yaalo meesha weli mogtahay. so marka waxaan dhahay okay 5 kilometer bis aan rabaa.
oo square ah waa ka bixi karaa haddii laga soo wactamo waa ka bixi karaa so marka xaafadan hadda waa postcode khaldana meesha iska geliyey laakiin waa example aan ka wadaa so xaafadaasan businesskay ku yaalaa 5 kilometer square-na waxa waaye hadii oo macnaha customer oo kasoo wactamo waa save garay karaa waan u tegi karaa marka insha Allah tacaala waxaan rajeynaa in locationka aad fahamtay iyo sida macnaha locationka loo doorto loo target gareeyo marka cashirka ku xigi doono insha Allah tacaala wuxuu noqon doonaa age gender iyo waxyaabahaas marka soo dhawaaw see you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته